salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wacan daawadayaal halkan waa shabakada wadanka TV kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo xilka qaadis ku sameeyay xirlaalihii qaranka mid cusubna magacaabay dawladda Kenya oo Axmed Madoobe ka dhaadhicinaysa in lagu celiyo doorashadii uu mar kale isku magacaabay iyo dawladda Soomaaliya oo arintaas lagu weyn ku leh warbixin ayaan idinkaga haynaa duqa Muqdisho oo digniin u diray shacab xilliga la qabanayo doorashada galmudug oo la shaaciyay Kenya oo ciidamo u daabashay gedo xilli ay jirto faragelinta Ethiopia dad ku dhintay rabab daadadwati oo ka da'ay Djibouti Sacuudiga Imaaraadka oo buriyo go'doomintii Qatar kadib markii awood wax kaga qaadi waayeen iyo kooxaha dimuqraadiyadoonka ay Hong Kong oo guul ka sheegtay doorashadii dhacday qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan saaxiibayaal soo dhawaad aynu ku bilaawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u magacaabay garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud xilka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxaana uu xilka qaadis ku sameeyay xeerlaaliyihii guud ee hore mudane Axmed Cali Daahir qoraal ka soo baxay afilla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabistan ay ku timid soo jeedintii gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha dib u habeynta garsoorka iyo xaqiijinta hanaan cadaaladeed oo hufan oo ka dhaqan gala guud ahaan dalka madaxweyne Farmaajo ayaa faray xukuumadda una jeediyay hay'adaha sharci dejinta inay soo dhameystiraan golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah iyo xeerarka quseeya dhismaha golahan si loo dhameystiro dib u habeynta garsoorka iyo hanaanka cadaaladeed ee dalka madaxweynaha ayaa kula dardaarmay xeerlaaliyaha guud ee la magacaabay inuu waajibaadkiisa shaqo u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala uuna shacabka Soomaaliyeed ugu adeego si hufan oo cadaaladi ay ku dheehan tahay ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa kamid ahaa saraakiisha dawladda ee hoggaanka u ahaa sharciyaqaanada Soomaaliya ee ku lugta leh kiiska ay Soomaaliya badeeda ugu difaacanayso Kenya ee horyaalla maxkamadda caalamiga ee ICJ taas oo la filayo in go'aankeeda uu soo baxo bisha June sanadka soo socda ee 2020 dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay guddiga qabanqaabada madasha tiknoolajiyadda ee Muqdisho martidii ka qayb gashay iyo maalgashayaasha ka qayb qaadatay qabsoomida shirweynahan ayaa waxa ugu baaqay inay ka qayb qaataan xaalad dagaal oo uu sheegay in dalka ku jiro waxa uu madaxweynaha sheegay inay muhiim tahay inay ka qayb qaataan dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto al-shabaab si looga adkaado waxaana uu tibaahay inay jiraan dad aan rabin horumarka dalka sida uu yiri waxa uu ku amaanay ganacsada sida ay uga qayb qaadanayaan horumarada kala duwan ee ka socda dalka Soomaaliya isaga oo sheegay inay muhiim tahay in taas lagu daro dawlad wanaag madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hore marar badan ugu dhawaaqay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal isaga oo tilmaamay in loo baahan yahay bulshada qaybaheeda kala duwan in dagaalka lagula jiro al-shabaab ay ka qayb qaataan si guulo la taaban kara looga gaaro geesta kale dawladda Kenya ayaa Axmed Madoobe ka dhaadhicinaysa in lagu celiyo doorashadii uu iskii isku magacaabay waxa magaalada Nairobi gaaray hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhawaan isku magacaabay doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo warar hoose ayaa sheegaya in Axmed Madoobe ay u yeertay dawladda Kenya oo dhagihiisa ku dhibcin doonta in mar kale la qabto doorasho ka hufan kana daahfuran midii hore Axmed Madoobe ayaa tan iyo doorashadaas wajahaya go'aano siyaasadeed kadib markii ay u deerisay beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay oo runta u sheegtay waxaana intaa dheer inay ku falaagoobeen qayb ka tirsan dhulka uu maamulka ka talin lahaa sida gedo intaa waxaa ugu sii darsamay dawladda Kenya oo bilowday inay caadiyeyso xiriirka diblomaasiyadeed ee la leedahay dawladda federaalka Soomaaliya oo ay xumaysay horaantii sanadkan taasoo Axmed Madoobe oo Kenya la olog siisay fursad uu ku sii howlgalo wararka qaar waxay sheegayaan in dawladda Kenya ee Soomaaliya ka ballan qaaday inay faraha ka qaadi doonto arrimaha gudaha Soomaaliya kadib kulankii Nairobi ku dhexmaray madaxweynayaasha labada dal taas oo ka dhigan jug kale oo ku dhacday fashilaadii Axmed Madoobe warar kale waxay sheegayaan in laga hadli doono xaaladda murugsan ee gobolka Gedo ka taagan geesta kale dawladda Kenya ayaa ciidamo u daabashay gobolka Gedo xilli ay jirto faragelinta Ethiopia dawladda Kenya ayaa lagu waramayaa in ciidamo hubeysan oo hor leh u daabashay gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ila wareediyo
ayaa laga soo xogtay in askarta oo ka yimid dhanka waqooyi bari lagu arkayo deegaanada ku teedsan xuduudda labada dal. warbixinada oo laga helay dadka deegaanka ayaa soo jeedinayaan ciidamada ay wataan gaadiidka dagaalka iyo hub culus. tallaabadan ayaa kusoo aadaysa xilli Itoobiya ee faragelin ka wada gobolka Gado iyada oo fulinaysa dalab ka yimid filan Soomaaliya. ciidamada xukuumadda Addis Ababa oo aan ka tirsan AMISOM ayaa jujuub ku haya degmooyinka Luuq, Doolo iyo Beled Xaawo. Maxamuud Sayid Aadan ayay ka hor istaageen inuu gudaha u galo Beled Xaawo toddobaadkii hore. warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in ciidanka Kenya ay taageersan yihiin Maxamuud Sayid Aadan oo muddooyinkii dambe ku sugnaa Mandheera. dowladda federaalka Soomaaliya oo xiriirka kala dhaxeeya maamulka Jubbaland uusan fiicneen ayaa doonaysa in ay Gado ka hirgeliso maamul hoostaga dowladda dhexe. xukuumadda federaalka oo iska fogeysa eedeynta inay adeegsanayso ciidanka Itoobiya ayaa ku dooday inay wado diiwaangelinta ciidamada. geesta kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa naqdiyay dadkii dhawaan is-hortaaga ku sameeyay muxaadaradii uu garoonka injineer Yariiso ka jeedin lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo kamid ah culimada Soomaaliyeed. Cumar Filish ayaa sheegay in qof Soomaali ah laga xidhin magaalada Muqdisho xitaa haddii uusan ka imaan gudaha xuduudaha la aqoonsan yahay Soomaaliya. Muqdisho waa u siman yihiin qofka ka yimaada Gaarisa, Jigjiga, Hargeysa, Jabuuti iyo midka iyada ku dhashay ayuu yiri Cumar Filish. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu sheekha yaqaan ilaa waagii isagu ahaa wasiirkii oo qaaftay arrimaha diinta isla markaana uu yahay nin uu ku yaqaano wanaag iyo samafal. Cumar Filish ayaa walow uusan cid gaar ah carabaabin ayaa haddana waxa uu sheegay in Muqdisho ay tahay magaalo loo wada siman yahay qofna aan loo diidi karin. dhinaca kale xilliga la qabanayo doorashada Galmudug ayaa la mudeeyay. guddiga doorashooyinka Galmudug ayaa soo bandhigay jadwalka hanaanka codeynta maamul goboleedkaas. war qoraal oo ay soo saareen ayaa waxa ay ku shaaciyeen in 25 ilaa 28 bishan November la xaqiijinayo odayaasha dhaqanka sida ku cad war-saxaafadeedka. 29 November ilaa 9 December ayaa waxaa la soo xuli doonaa xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada. guddiga ayaa warmurtiyeedka ku xusay in 10 ilaa 12 December uu howlgali doono baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Galmudug. bayaanka waxaa sidoo kale lagu cadeeyay in doorashada guddoonka baarlamaanka ay qabsoomayso 13 ilaa 16 bisha December ee soo socota. ugu dambeyn guddiga ayaa 17 ilaa 23 December u cilaamiyay in ay qabsoomi doonto doorashada madaxweynaha Galmudug. ilaa iyo hadda 3 musharax ayaa u taagan xilka ugu sareeya ee maamulka Galmudug. geesta kale dad ayaa ku dhintay roobab daadwatay oo ka da'ay dalka Jabuuti. inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa geeriyootay kadib daadad iyo roob xoog leh oo ka da'ay caasimadda Jabuuti. dowladda Jabuuti ayaa bilowday gurmadka dadka waxyeelada soo gaartay kuwaas oo ku nool caasimadda Jabuuti. sidoo kale waxaa heegan la geliyay ciidamada kala duwan ee Jabuuti inay ka qayb qaataan gurmadka dadka loo fidinayo. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kulan degdeg ah waxa uu la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka caasimadda Jabuuti isagoo ugu baaqay in loo gurmado dadka uu roob saameeyay. halkaad naga daawanaysaan waa shabakada wadanka TV. dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa buriyay go'doomintii Qatar kadib markii ay u taag waayeen. xoralka Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ka degay magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar maalin ka hor bilowga dufcada 24aad ee koobka Khaliijka Carabta oo lagu qabanayo wadanka Qatar. xulka qaranka Sacuudiga ayaa soo raacay diyaarad dalkiisa Saudi Arabian Airlines iyaga oo toos uga soo duulay dalka Sacuudiga, taasoo ka dhigan in uu iskii u buray go'doomintii uu ku soo rogay Qatar ee dhul cir iyo bad intuba ahayd. Imaaraadka ayaa iyagu soo maray jidka Kuwait kaas oo ay sidoo kale marayeen dadka reer Qatar iyo kuwa halkaa degan tan iyo June 2017 maadaama aan diyaaradaha Qatar loo ogoleen hawada Sacuudiga ee Imaaraadka. muuqaal lagu faafiyay wargeyska Peninsula Qatar ayaa muujinaya 23 ciyaaryahan ee Sacuudiga oo si rasmi ah lagu soo dhaweynayo gegada Hamad International Airport ka hor inta aan deegaankooda loogu galbin bas weyn oo cagaaran calankooda loo ekeysiyay lagu casuumay. Imaaraadka oo saacado yar ka lug dambeeyay Sacuudiga oo habeenkii Axad isagoo halkaa tagay ka degay madaarka Dooxa ayaa isna sidoo kale loo soo dhaweeyay. xulka Qatar ee sanadkan hantay koobka Asia ayaa markii ay Imaaraadka u dhoofayeen waxay mareen dalka Oman iyaga oo deeto bas u raacay Imaaraadka.
ugu dambeyntiina kooxaha dimuqraadiyadoonka ee Hong Kong ayaa sheegay in guul wanaagsan ay ka soo hoyeen doorashadii ka dhacday halka maalin ka hor. sida laga soo xigtay kooxaha dimuqraadiyadoonka ee Hong Kong ayaa waxay sheegeen inay ku guuleysteen 278 kursi oo golayaasha deegaanka halka kooxaha u janjeera dhanka xukuumadda Beijing ay heleen 42 kursi. Inkastoo ay jirto cabsi ah in doorashada la baajiyo iyada oo loo soobeynayo xasilooni darada ka taagan Hong Kong ayaa haddana waxaa muuqata in taasi aysan dhicin oo kooxaha rabshadaha waday waxa ay go'aansadeen in inta ay doorashada socoto joojiyaan dibadbaxyada. doorashadan ayaa loo arkayay inay tijaabo u tahay taageerada ay dadka u hayaan xukuumadda Hong Kong ay taageerto dowladda Shiinaha kadib bilo dibadbaxyo oo laga soo horjeeday maamulka Hong Kong. maamulka Hong Kong iyo xukuumadda Beijing ayaa sheegay inay rajeynayaan in doorashada ay bidhaamin doonto taageerada ay dadka aan hadlin u hayaan dowladda, balse waxaa muuqata in taas ay meesha ka dhacday. shakhsiyaad muhiim xukuumadda Beijing ayaa sidoo kale guuldarro kala kulmay doorashada. mid ka mid ah mas'uuliyiinta ugu caansan ee taageera xukuumadda Beijing oo kursigiisa waayay ayaa sheegay in aan wax la maleysan karin ay dhacday. waxaa dhacay waxaan ahayn adduunka doon aan la arag ayuu yiri. inkastoo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Hong Kong aysan lahayn saameyn badan oo shaqadooda ay tahay in ka shaqeynta adeegyada bulshada, haddana waxaa doorashadii ugu horeysay ee dadka ku muujiyaan ra'yigooda kagana soo horjeestaan hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam. dad gaaraya 4.1 milyan ayaa u diiwaan gashan inay ka codeeyaan Hong Kong, waxaana lagu soo waramayaa in ku dhawaad 3 milyan oo qof ay ka qayb qaateen doorashada golaha deegaanka. dadka ka qayb qaatay doorashada ayaa lagu qiyaasay 71% halka sanadkii 2015 dadka codeeyay ay ahaayeen 47%. hagaag daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen shabakada wadanka TV. warkaan warka xiga inta aan dib ugu kulmin doono daawadayaashaanu jecelnahay waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.